lafaruug buu dagaalkiisugu tegi doonaa bulxaar baa la geyn doonaa nimanka soo duulay bulxaar xeebta badda cas baa lasugu geyn doonaa hadda jannaa dhalatay kaca jiilkii daruushka magaalada gaalkacyo shacab fara badan oo ka careysan xaaladda ka taagan magaalada Laascaanood ayaa xirtay laamiga halbowlaha ee mara bartamaha magaalada gaalkacyo mudaharaadayaashan oo dareen iyo dabqasho u muujinaya shacabka reer Laascaanood oo maalintii shanaad ku jira xaalad abuurtay dhimasho iyo dhaawac dad rayid ah ayaa waxay ku sheegeen in lagu hayo xasuuq ba'an oo ka dhan ah xuquuqda bini'aadantinimada iyo xorriyadda dadka halkaasi ku nool waa kuwan dadkii saakay isugu soo baxay wadooyinka waaweyn ee magaalada gaalkacyo oo dareenkooda kaga hadlaya arrinta ka taagan magaalada Laascaanood iyo guud ahaanba gobolka Sool كو هلي ما يدارشو موسى بيحي سومالي ديد كداني مينا سومالي ديد كداني مينا موسى بيحي وانا هلكي سدعي وانا المحبة ولين ماشا وحال لاسعارك يالا وخلط وحوس العضية وخلط وحو ما تضيا المايقا نوغدا مينا وخلط انا وقعان برلاس كي خبرينا هدو دادكي سو خبسا وايان قعان برلاس كي خبرينا دانو نحي هرتي oo magac hartaanu wadano oo dhulbaxanta aynu nahay oo muwaadin aynu nahay waxaan diidanahay inuu ka hadlayna daba dhilifka waynu fahanay waynu garanay aqli baynu yeelanay waynu dareenay daba dhilifna doonayno waynu idinku fahanay maanta inoo taala maanta ninkii dhoofku yimid bay geeridu dhibaysaa caruur iyo naagaha lalaayay culamaawdiinka odayaasha madaxa loo duubanayo kuwa loo duubanayo madaxa ninkii kuwa masaajidada lagu laynayo gabdhaha la laynayo umulaha la dilayo gabdhaha la biraynayo midna ma qaadan doono waxa weeye dadkaanu wajahadayaan qofkii dhoof ku yimid baana geeridu dhibaysaa waxa weeye meeshaan waa Dhoodimeer Ismaaciil Mire maalintii bay taagan tahay waa sanad guuradii waa 85 guura waana noo muuqataa waxa weeye lafaruug buu dagaalkiisugu tegi doonaa bulxaar baa la geyn doonaa nimanka soo duulay bulxaar xeebta badda cas baa lasugu geyn doonaa waxa weeye hadda jannaa dhalatay kaca jiilkii daruushka xasuuqa lagu wado dhalinyarada reer Laascaanood iyo dhammaan shacabka reer Sool aad baan uga xunnahay dhibaatadaas waa idin la qaybsanaynaa qorraxda idinka idin taagannahay waxaanu maanta mudaharaadkaas aan isugu soo baxnay dhibaatada lagu wado walaalaheen wareer gaalkacyoodow reer Laascaanood abaal bay idin dhigteen 1991 ilaa 2017 adinka dartin ay iimaaniyeen dhulbaanta badan ayaa gaalkacay ku dhimanay waxbana kama gelin deegaankoodana ma ahayn harti oo kaca war daarood kaca war fadhiidin ma yaal war walaalihin waa la laayay war dhiiga shacabka war hooyada umusha war dhalinyarada walaalihin oo yareerka ardada waxbaranaysan maalinka soortina lagu dilo war dhiigina kuma jira miyaa war nafidin ma taalmiyaa war fadhiga ka kaca war gurmadka geeya war dhiiga shuba war lacagta qaada war dagaalka gala war hubka gurta fadhiidin ma yaal aad baan uga xumaa Laascaanood waxa ka jira laamiga xiranay waxaan u xiranay dadka lagu xasuuqayo Laascaano oo baan ka dhiidayna dareenkayga baa wada istaagay gabdhaha iyaga iyo ragga iyaga baa Laascaano lagu leeyahay Laascaano xorowda laamiyadu waa xirnaanayaan ilaa Laascaano xorowda laamiyadu waa xirnaanayaan ilaa dawladda Soomaaliland Laascaano laga kiciyo laamiyada Puntland iyo Soomaaliya waa xirnaanayaan ma tabayada la leynayo Laascaano lagu leynayo oo la xasuuqayo oo صغير له كبير له شيخ له عالم له بانو كبنا بحنا oo Soomaaliland ku soo duushay baan rabnaa inaan iska kicino oo ka gidinay oo ka banaan baxnay idin la qaybsanaynaa tiiraanyada iyo ciilka iyo murugta waana idin la garabkiinaan taaganahay maxaan kugu iraahdaa gardarrada cad oo Soomaaliland Muuse Biixi Soomaalidiidku idinku soo qaaday aad iyo aad baan uga xunahay dawladda Puntland waxaan leeyahay in walaalkii loo xiray wadna soo qoyso tukaraq way nimanku soo marayaan garow way xoog rabaan inay ku qabsadaan Laascaano hore u qabsadeen hadda waxa weeye maanta waxa weeye hiil iyo hooba looga baahan yahay inay Laascaano dib u soo celiyaan baa la rabaa shacabka reer Sool baa dib kala qaybsanaynaa Muuse Biixi tuujam hadaynta ka galay oo turka ka galay ayuu rabaa inuu dadka ku cusriyeeyo yeelina mayno salguul Muuse Biixi inuu in cambaasho ku shaqaysan oo Muuse Jaa'ina baasha uu noqdo nin adeerkii iyo walaalkii iyo gurigiisa iyo reerkiisa garab taagan inuusan xaas u noqon Muuse Biixi intaasaanu ka codsanaynaa reer Laascaanood waxaan leeyahay isku tashada reer Sool waxaan leeyahay cidna isku halaynina waxa lagu gacan qabtaa gurmadku ku badbaadiyaa adoo horta galay dadaal
waxaad gaari weyda ee dantaadu ka gaabisaa gargaar lagu sii daraa horta marka ugu horreysa waa inay iyagu kacaan waa inay iyagu qiiro muujiyaan waa inay nafta huraan waa inay dhiigga huraan waa inay muujiyaan inay u diyaar u yihiin inay isxoreeyaan inay ka dhiidhiyaan waxa 200 iyo siyaaday marayaan oo waxay ku dhinteen aan la garanayn dadka reer Puntland waxaan leeyahay ee sheeganaya waa dastuuriyan Puntland bay ka tirsan yihiin ku haya war waa dastuuriyan ma noqoto dal lagu ma helo haddaadan u dhiidhiyayn haddaadan u kacayn haddaadan xoraynayn haddaadan u dagaalamayn nin walba inuu doorashada ku galo oo yidhaahda anaa soo celinaya gobolka sool wax loo dulqaadan kara ma aha xubnaha ka soo jeeda gobolka sool ee dowladda Puntland ku matala gobolka sool sida madaxweyne ku-xigeenka iyo 17 xubnood xildhibaanada iyo wasiirada Puntland idinkama baahna xagee laga soo dooranaya doorashada Puntland baanu galaynaa waa kan wasiirka waafinta ku haye horta xagee buu doorasho ka soo gelaya waa in la dhiidhiyaa waa in dalka la xoreeyaa 15 sano ee la soo dhaafay ayaa waxaa ka socday dilal loo geysanayo haldoorka gobolkaasi taas ayaana keentay kacdoonka shacabka reer Laascaanood ee haatan taagan Cabdisalaam Bare wararka warbaahinta meeraysan galkacyo